soo dhawaada kuna soo dhawaada channelka Roman Media magaciiguna waa Abbas Mustafa waxaan maanta muuqaalkan ku soo qaadan doonaa dhiirigelintii ugu wanaagsaneed ee aan arko inaad like saarto videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inaad dad badan gaarsiiyo maalin maalmaha ka mid ah wiil yar oo lagu magacaabi jiray Thomas Alva Edison ayaa yimid gurigooda wuxuu warqad u waday hooyadiisa wuxuuna ku yiri macallinkayga ayaa warqadan ii soo dhiibay wuxuuna uu ii sheegay qofka kaliya ee aan warqadan u dhiibay inay tahay hooyadeeda hooyadii waxay qaaday warqadii si ay u akhrido asiguna wuxuu soo fadhiistay hooyadii si ay hooyadii u sheegto wax ku qoran warqadda hooyadii markii ay aragtay wax ku qoran warqadda way ilmeeday deedna waxay bilowday inay akhriso warqadda wax ku qoran waxay bilowday sidaan wiilkaagu waa mid aad u caqli badan oo u aqoon badan dugsigana waa mid aad u yar markii asaga loo eego kamana uu helayo macallimiin aqoontiisa ku hagta oo ku tababaraan fadlan adigoo u noqo macallin oo waxbar sanado badan kadib hooyadii way xasuustay deedna way u timid Thomas wuxuu noqday daafurihii infantarkii ugu weynaa qarnigiisa maalin ayuu damcay inuu xasuusiyo hooyadii dib u akhriso waxa uu furay sanduuq ama qaanad yar oo ay ku jireen warqado badan waxa uu ku dhex arkay warqad uu macallinkiisa u soo dhiibay waa uu furay warqadii waxaana uu ku bilaabay inuu akhriyo waxayna u qorneed sida tan wiilkaagu waa mid maskaxda ka xanuunsan oo aan waxba fahmin ugumana ogolaanayno inuu dugsigeena dib ugu soo laabto Thomas waa uu ilmeeyay wuxuuna ogaaday in hooyadii ay ahayd qofka noloshiisa beddeshay dhiirigelin badanna siisay buuggiisa xasuus qorka ayuuna ku qoray hadalkan Thomas Alva Edison wuxuu ahaa wiil yar oo maskaxda ka xanuunsan hooyadii ayaa ka dhigtay kan ugu caqliga badan qarnigan hadallada wanaagsan ee dhiirigelinta ah waxay qofka ka caawin karaan inay beddelaan noloshiisa oo idil ogowna hooyada waa dhiirigeliyaha ugu weyn noloshaada Thomas Edison wuxuu ahaa mid ka mid ah daahfurayaashii ugu weynaa taariikhda aadamaha soo mara waxaana loo aqoonsaday inuu yahay daahfurihii ugu weynaa gudaha Mareykanka waxaana uu ahaa sidoo kale ganacsade qaaday casriga cusub wuxuu ahaa shakhsigii alifay qalab ka qayb qaatay koritaanka korontada iyo isgaarsiinta qalabka duwidda codadka iyo sawirada waxa uu ahaa nin alifay nalka maanta aynu isticmaalno sidoo kale waxa uu dunida dhaxal ahaan uga tagay shaybaaro badan oo muhiim u noqday caalamka